maalmo gudahood qararadii siyaasadeed ee bariga dhexe ayaa isbedeshay xilli dadka dunidu ay u haysteen in Tehran ay qarka u saaran tahay inay dunto ama burburto. Waxaa soo baxay warar sheegaya heshiis qarsoodi ah oo ka dhacay dalka Masar. Ma ahan kaliya heshiis diblomaasiyadeed, balse waa badbaado weyn. Maxay tahay sirta ka dambeysa in Sacuudiga iyo Iiraan ay ku kulmaan Qaahira? Waxaan kala dhigi doonaa heshiiskii qarsoodiga ah ee aan hore loo maqal. Si aan u fahanno heshiiskan, waa inaynu dib u eegnaa xaaladii Iiraan, cunaqabateyn dhaqaale, kacdoono gudaha ah iyo go'doon caalami ah ayaa Tehran dhigay meel halis ah. Dhanka kale, boqortooyada Sacuudi Carabiya waxa ay doonaysaa inay xoogga saarto mashruuceeda 2030, taas oo u baahan xasilooni gobolka ah. Kulankan ka dhacay Masar ma ahan mid iska yimi, ee waa mid looga gol leeyahay in lagu qaboojiyo colaadaha muddada dheer soo jiitamay. Maxay tahay sababta loogu doortay Masar? Qaahira waxa ay mar walba ahayd wadnaha siyaasadda Carabta. Madaxweyne Sisi iyo diblomaasiyiintiisu waxa ay ciyaareen door aamusnaan ah oo la iskugu soo dhaweynayo labadan awoodood. Masar waxa ay dan ka leedahay in badda cas laga fogeeyo qaraha maleeshiyaadka. Iiraanna waxa ay u aragtaa Masar inay tahay irid muhiim ah oo ay dunida Carabta kaga mid noqon karto. Haddaba, maxaa lagu heshiiyey? Maxayse yihiin qodobada sirta ah? Qodobka koowaad, joojinta faragelinta tooska ah ee arrimaha gudaha ee dalalka dariska ah. Qodobka labaad, iskaashiga xagga amniga badda si loo damaanad qaado ganacsiga caalamiga ah. Qodobka saddexaad, in la yareeyo hadallada xasaasiga ah ee warbaahinta labada dhinac. Qodobka afaraad, Masar oo noqonaysa damaanad qaadaha hirgelinta qodobada qaarkood. Heshiiskani ma ahan mid u furan oo kaliya saddexdan dal, waa fariin ku socota reer galbeedka iyo quwadaha kale ee caalamka. Haddii Sacuudiga iyo Iiraan ay si dhab ah u heshiiyaan, waxaa isbedeli doona xaaladda dalalka ay ka mid yihiin Yemen, Suuriya iyo Lubnaan. Ma la arki doonaa bariga dhexe nabad ah, mise waa uun xabad joojin ku meel gaar ah? Xaqiiqadu waxa ay tahay siyaasaddu ma laha saaxiib joogto ah, waxayse leedahay dan joogto ah. Heshiiska Masar wuxuu tusaale u yahay sida danaha qaranka ay ugu sareyn karaan khilaafaadka caqiidada iyo loolanka awoodda. Maxay kula tahay adiga? Ma rumaysan tahay in heshiiskan uu keeni karo nabad waarta? Nagula wadaag fikirkaada qaybta hoose ee commentiga. Ha iloowin inaad like saarto muuqaalka siina share gareyso si dad badan ay u gaaraan. Sidoo kale, subscribe inoo saar haddii aad ku cusub tahay channelka.